gudoomiyaha xisbiga mucaaradka ah ee wadajir ee Soomaaliya Cabdiraxmaan Cabdishakuur Warsame oo ka qayb galaya barnaamij dood ah oo soo agaasimay TV-ga Sky Arabic News ee wadanka Imaaraadka ayaa ka hadlay arrimo badan oo xasaasi ah. mar wax laga weydiiyay xiriirka Soomaaliya iyo wadanka Qatar ayuu sheegay in Soomaaliya ay tahay halka laga ilaaliyo danaha wadanka Qatar. بدأ تأثير التحالف بين الرئيس الصومالي محمد عبد الله si weyn ayay u soo muuqatay saameynta isbaahaysiga ka dhaxeeya Farmaajo iyo Qatar ta ka hortagga wax kasta oo khilaafsan mashruuca Qatar ee Soomaaliya. dani ha ugu jirto Soomaaliya ama yaanay ugu jirin. madaxweynuhu wuxuu ku dadaalayaa danihiisa gaarka ah iyo danaha kuwa u durbaan garaaca. wax dana kama lahan ilaalinta iyo dheelitirka xiriirka dawladaha saaxiibka ah iyo kuwa isbahaysiga ah iyo xitaa carabta. ولا تهم العلاقات المتوازنة مع الدول الصديقة والحليفة لا سيما العربية. Cabdiraxmaan Cabdishakuur Warsame ayaa la weydiiyay kaalinta baarlamaanka Soomaaliya mar haddii madaxweynihii uu la safan yahay wadanka Qatar. waxa uu ku jawaabay إنه الرشاوي قدرية تطل laaluushka iyo lacagaha Qatar ayaa dalka la keenaa waxaana keena diblomaasiyiin caalami ah iyo xubno ka tirsan midowga Afrika si loo ilaaliyo taliska madaxweyne Farmaajo. 70% xildhibaanada baarlamaanka Soomaaliya waa wasiiro. inta soo hartayna waxaa la siiyaa lacagahaasna waxaa bixisa dawladda Qatar. هم رواتب شهرية من قبل الحكومة وهذا مدفوع من قطر. وعلى Cabdiraxmaan Cabdishakuur Warsame ayaa sidoo kale la weydiiyay miyaanay dhibaatadu dhankiina ahayn maadaama baarlamaankiinu uu qaadanayo laaluush. waxaan ognahay in qadariyiintu aanay ahayn Soomaali. القدريين ليسوا صوماليين فنحن نقول أن في الصومال في مرحلة البناء. qadariyiintu ma ahan Soomaali. sida aan ognahay Soomaaliya waa dal ku jira xaalad soo kabasho ah. dhismaha dawladnimaduna waxa uu leeyahay caqabado xooggan oo ka iman kara dhan waliba. wali ma aynaan gaarin in shacabku ay soo doortaan xildhibaanada. hadda waxaa booskooda ku jira odayaasha qabiilada. القبائل يعينون حسب الولاء القبلي.